kusoo dhawaada wasiirka films magacaygu waa wasiirka fadlan haddaa kanaalka ku cusub tahay marka kugu horeysa aad daawanaysa ay tahay fadlan subscribe doo saar sidoo kale waxaan ka rabnaa inaad like doo saarto videoga waana ku mahadsantahay shalay iyo daraadba labadii maalin ugu dambeysay Jarmalka waxaa aad loo hadal hayay go'aankii ka soo baxay madaxweynaha gobolka Saxon magaciisa waa kaas lockdown amaba bando amaba qalq kaamil ama xiritaan kaamil in magaalada dhan la xiro uu sameeyay oo go'aan ku qaatay waxaana bilaabanaysaa wiiga soo socda maalinta Isniinta ee bisha ay tahay 14ka bandowgaas ama xiritaankaas kaamilka wuxuu socdoonaa ilaa iyo 10ka bisha January sanadka cusub kulay 25 ilaa hada wax bil ku dhow waay waxyaalaha la xiray waxaa kamid ah oo Jarmalka ee hore raali ugu ahayn inay xirto oo gobolkan yani ku dhiiraday waxaa kamid ah jaamacadaha sidoo kale meelaha yar roodada atfal ma la meelaha ilmaha la geeyo ilmaha lagu haayo saasoo kale iskuulada caadiga ilmaha dhigtaan wax walba oo macnaha waxbarasho ee markaas ama ilmaha lagu haayo ama dadku waxa ku bartaan wax walba waa la xiraa waxyaalaha laakiin la xireenin labada shay ugu waaweyn waxa kamid ah supermarketka meesha cunooyinka laga iibsado lama xiray wax kasto dhac lama xiray waa dadka hadii dukaan la xiro dadku waxay ku noolaadaan ma haystaan problema imaanay sidoo kale shaqana way furnaanaysaa qofkii shaqo tagaa uu tagi kara meelaha moolka wax laga iibsado meelaha la isugu yimaado waxa soo dhan waa la xiraa ma fahanteen hatta iska socota hatta waxa laga yaabaa iska socdo inuu boolisku istaajiyo laga yaabo oo ku dhaho مثلا انت او سocota maxaad u socotaa wala weydin kara sabab la aan u baxda taa waa mamnuuc because guriyahina jooga dadka lagu haya haduu ilaahay ku roon yahay waxyaala marka bandowga marka kulay madaxweynaha kulay shir jaraa'id oo qabtay macna ma sii faahin waxyaalaha furnaanay oo kala yani zaid ma sii faafina marka waxyaalahaas marka waxa kamid ah marka shir jaraa'id kadib wuxuu ku sheegay waxyaalaha مثلا sii furnaan oo kale waxa kamid ah markii dukaanka taas waa la wada ogyahay waxa ku xigi doona meesha oo basiinka lagu iibiyo oo macnaha gas station ka dadka gawaarida kaga qaataan way furnaanaysaa dukaamada xayawaanaadka ama xayawaan lagu daaweeyo ama xayawaan cunaha lagu soo iibiyo way furnaanaysaa farmashooyinku way furnaanayaan isbitaalada way furnaanayaan meelahan surface-ka oo gawaarida ilaa qofka gaariga ka halaawi karo gawaarida oo kala surface gawaarida way shaqeynayaan surface baaskiilada way shaqeynayaan meelaha cabintaanada laga iibsado ama beer ha ahaato ama qamra ha ahaato wax kasto la cabo dukaamo waxa jir u qaas ah bis waxa la cabo lagu iibiyo kuwaas way furnaanayaan saasoo kala marka intaas way sidoo kale waxa idinka iloobay timo jarahana way furnaanayaan ama nin ha lagu sameeyo ama timaha naag ha lagu sameeyo salon ha ahaado kuwaasna way furnaanayaan laakiin meelaha caadiga yani مثلا maqaayad oo kale kuma jirin مثلا maqaayad oo kale la xirnaanaysan jeclahay meelaha la sugu iimaanay dadka ay ku sheekeysanayaan ama ay fadhiisanayaan waxa soo dhan mamnuuc waay ilaa laga gaaro 10ka January marka hadii kale Jarmal aad degan siibaana waxaan ka hadlay waa gobolkeena gobolka Saxon waay dawladda bisha la soo dhaafay oo kala bando nooca waasmaysa laakiin jaamacadaha iskuulada way furnaayeen waxyaalaha inta badan way furnaayeen bila ku darsatay oo macna ilaa bishka laga gaaray wali sidii waa wax ma ka bedelay laakiin gobolkan waxyaalaha isbedelka uu sameeyay waxa kamid ah waxyaalo badan oo xiray oo jaamacadaha iskuulada ay kamid yihiin ma fahanteen kulay gobol kala jir Jarmalka raba inay saas oo kala sameeyaan ay ku dhiiradaan sida gobolkan Saxon oo kala bariga Jarmalka ku yaalo laakiin wali macnaha go'aan kama soo bixin oo macnaha wali ayaga dawladda in gobolkaas dawladdu leeyahay ayaga wada hadal ka dhaxeeya ayaga wali isku haysto oo macnaha wali go'aan yani cad kama soo bixin oo saas oo kala sameeyna ma dhihin laakiin hadda waxa la sheegaya gobolka Bayer asana laga yaabaa inuu sida gobolkan oo Saxon oo kale inuu sameeyo oo saas oo kale asana wax walba xiro inuu xiro u raba haduu ilaahay ku roon yahay marka macnaha hadii Jarmal ku nooshahay waxa marka talayga ah inaad wax safar sameyn hadaa taliyaan u socotid hadii Sweden u socotid hadaa America u socotid inaad wax safar inaad sameyn because shuruuda aad loo adkeey because waxa laga yaabaa in lagu maxaa u socotaa warqad caafimaadkeen oo inaad cudurka مثلا viruska qabin oo kala corona oo kala shuruuda aad u adeeg marka soo laabatin waxa waay laazim inaan 2 isbuuc guri fadhiisid waay ma fahantay marka si hadii loo ogaado in caafimaad qabtay in kala yani loo hubay marka hadda waxaan kula talnaa qofkii raba inuu safar sameeyo inuu wax safar sameeynin
bishan inta lagu guda jiro iyo bisha soo socotaba oo wixiisa ka dhigto bisha koowaad iyo wixii ka dambeeya inuu ka dhigto marka wasiirku idinkaga tagay sida nabadgelyo waxa iga xasuusina inaad subscribe ii saartaan kanaalka video like ii saartaan waana mahadsantiin maca salaama bye bye